arrinta ugu dambaysa raba inaan ku soo xidho anigoo ka faa'iideysanaya tii hore inaan gaabiyo tan aan ugu haysanayo waxa weeye shared rule-ka Ethiopia ka jira hadda anagu Soomaali ahaan maxaa nala gudboon weeye anaga waxaan nala gudboon kow inaan voice iyo influence macnala ku yeelano inaan resource-ga dalka ee centerka yaalla wax badan ka qaadano shidaalkii hadda ka hor aan ku qorayn dastuurka baarlamaan baan ansixiyay 50% deegaanka la baaliyay implementation kiisa 50% yaa go'aaminaya soo noqonaya all of this waa detail aad far badan laakiin improvement baa jira in la acknowledge gareeyo deegaanku inuu wax leeyahay oo sharci lagu qoro waa in ra'yi noqon resource ugu yaraan 22 bilyan oo mashaariic oo jidad laami ah ka socda deegaanka anaga hadda first time oo resource deegaanka aan ahayn kii federaalka aan ku lahayna grant commission guddi oo heer federaal intii aadan farax joogay la sameeyay oo xaqiijinaya mashaariic walba oo laga centerku uu sameeyo 70% miisaaniyadda maadaama asba lagu maamulo deegaankana wuxuu ku leeyahay waxa lagu sameeyo waa la sameeyay from regional perspective what our interest is self rule within self rule equity oo dadka dhexdanada political inclusivity human rights nabadgelyo development democracy sisa xagga dimuqraadiyadda talaabooyinkii loo baahnaa wali lama qaadin goldololooyin baa ka jira inaan u qaadnana diyaar baan u nahay walow xaaladda guud dalku ay naxadidayso iyo structures ka jira ay naxadidayaan laakiin waxyaalaha kale oo dhan massive improvement ka jira undeniable massive improvement political inclusivity waa la balaadiyay Soomaalidu iska wada dhaxaragta governance-ga waxa laga yaabaa meelaha borderska qaar noo harsan baa jira wali aanan gaadhin oo baahan inaan extend garayno oo authority-gi iyo mapkiina noogu jira laakiin capacity-gi iyo legitimacy-ga aanan ka haysan this is one area in loo socdo u baahan unified Somali voice in la abuuro as a leadership level waa la sameeyay hogaaminta Soomaalida hadda jirta hogaamiye is haysan ambassador Maxamuud Durwi nala fadhiya oo kala qaybsan oo barba sabab loogu yeeray barna ku haya manihin hadda we are cohesive we have one voice not easy and shacabku ma israacsan yahay badankiisu wuu israacsan yahay laakiin siyaasiyiintu isma raacsana and it's unnatural in israacan it's unnatural in israacan ku dadaalayna in waa inay competition galaan ba u furan mooyaan inay consensus dimuqraadiyadda aan ka sheekeynay xitaa ay lid ku tahayba dadkoo dhan dawladda ha taageeraan ma odhanayno marka inahaas ayaan anigu ku soo koobi lahaa